السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي القروح بدن كسر هذا فيديو عصب. أصحابتي عصب سود هذا أصحابتي رجعتوا مع سنتين موضوع عايق سويسين أباي سيدي وبدل الشيء عناد جورجاجا إن شاء الله سود وإن شاء الله عناد جورجاجا وبدل كرتا صفر ذا وبدل كرتا وحيابه إيجابية أنا جو حيتهاي laba qodob insha Allah aan sameey labadaas qodob mar walba inay caawiyeen aaminsana hooyo walban haday sameeyso insha Allah caawin doonto mar walba muhiim ku yahay insha Allah jadwalka gurigaaga inuu ku soxan yahay ilmaha cunno caafimaad ay siisatid sidee si caafimaad kuga koraan ilmaha bariis iyo baasto la in la siiyo iyo sokor sax maaha blay quruxda badan waxay u baahan yihiin cunno isku dheelitiran in la siiyo sidee koriishadooda si qurux badan insha Allah ilmaha da'dooda inay ka weynaadaan hadii ay jeceshahay cunno hada isku dheelitiran insha Allah blay quruxda badan mar walba muhiim ku tahay insha Allah aniga labada qodob hadii aan sheegay hablay quruxda badan iga fududeeyay ina gurigeyga cunnada aan bedelo qodobka koowaad wuxuu yahay ilmaha markay yar yihiin 6 bilood ay gaaraan ku bilaaba cunnada sababta loo leeyahay waxay tahay cunugaada sanad markuu gaaro dhammaan cunnooyinka uu ku yaqaana sababta waxay keenaysaa maalinba waxa uu sameynaysaa soo maaha mar walba insha Allah ilmaha yaraanta ku bara dhadhanka cunnada markay roonaadaan ilmaha u sharxa faa'iidada leedahay hooy way ku fiican tahay hooy way ugu koraysaa maalinba nooc qodobka labaad kalena iga caabi waxay tahay todobada maalin todoba cunno ilmaha inaa u karisid cunno qaar waa laga yaabaa weekii laba mar inaa karisid ay soo noqoto laakiin mar walba waxa fiican maalin bariis maalin soor maalin muufo maalin sabaayad sidaas inaa u sameeysid oo aad kala badashid insha Allah cunnadaana kale marka maanta bariis la cuno saddex bari oo cunno kale la cuno maalinta afraad bariis caadi waa la soo celin karaa hableyga quruxda badan mar walba sidaas waa labadaas qodob iga caabi ina ilmahayga yaraanta aan ku bare wax walba oo cunno la cuno midda labaadna waxay tahay midda koowaad waxay tahay ilmaha yaraanta in cunnada lagu baro sida cunuga sanad markuu gaar dhamaan cunnooyinka uu kugu yaqaan midaas ugu horeysa midda ugu muhiimsan waa habley quruxda badan midda labaadna waxay tahay in guriga maalinba nooc la kariyo waxay qayb qaadanaysaa dhamaan cunnooyinka ilmaha inay yaqaanin eeba dhibsaninba hadii intaas aad sameenin maxaa sameyn karaa ina cunnada aan bedelano waa u baahana ilmihi bariis baasta kaliya inaan siiya diyaar uma ihi hooyooyin fara badan ay soo dhahe waxa sameyn kartaan abaayo idinkoo mahadsan ina marka hore ilmaha diiweyn aan la fariisataan aad dhahdaan week meeqa bari waa ama isbuuci todoba maalin gurigan todoba cunno waa in la cunaa todoba cunno si cunnada ay isleedahay ma yaqaanin ama ina bartid arabtid waxa leedahay cunnada aniga qaatay isbuuci laba maalin la karinaya waa cunnadii hooyo ee dooqday إن شاء الله أديك عنا ذا ضاق مد بمركة وحشيجا يا قصب وما عنق بالنوع وعلات الضبط نوع على الربع عنا إن لا شكته هدي مركز أقوني وأداء الشيء مد بريسة سينة مد صارة سينة مد موفاس سينة مد سواعد سينة مد كلا أدي أفر بركدب أو هل عنا كلا إصانة قطع واحد بماله لكن مروال بن إسكوداي إن شاء الله بريسي باستر لابد بهدي لكارينايو الماء انقدار فربضان لغوسية مهم وهي هدي هي بقى أبودن حتى qudaarta u badi habley qurux badan qaasatan boqorada baradhada bataatiga ilmaha saaidi u koriyaan habley qurux cunnadana wuu maceeyaa mar walba bariisko kale hadii dalaca ku soo karisay badana anaga waxa u isticmaalnaa maho dalac hilib yar lagu soo kariya hilibkaas oo kale ku karisay inaad u raacsiisid digir ama beebeshe ama digirta gaduudan ama salbuko ama misir ayu digir ina inta bisleysid bariisku uu kordaas ilmaha ay kugu cunaan ما شاء الله فائدة فربنا كهلاي أيضا دلقي كوبرنا مرة إن شاء الله المها يا لجو قصبين يا لجو دلين يا لجو عناد ما أنت كل عنا أسبوع كرسي ولا قادم واي بيروح على هذا أوكي أيضا كرنا سلا برت عنا أسبوع عنا أيضا كرنا مرك عنا حق قصبنا أنا يا إنه إسكت ما عنا سيدا بيرو عنا دوقيس أو عنا سيدا أوفض واي المها عنا ذا الله بركة إن شاء الله مرة والبنا مهمة كوتاي سليد هذه أصلا نأخذ قبل بدنا إليها باي سليد سيدا كوفض ذاتي marka abaayadana su'aal la soo weydiis abaaya caanaha naaska dhahday marka la siiyo cunugu haduu hurdo sidee loo keedinaa idhaahdo waxa loo keedin karaa abaayo fridge kala hadaa haysatid 3 saacadood inuu kugu jiro 3 maalin waa ku keedin kartaa hadaa fridge heleenin banaanka 8 saacadood oo ku ooli karaa 6 saacadood ilaa 8 saacadood oo ku ooli karaa caanaha naaska abaayo waana safe meel nadiif oo daboolan ina dhigtida loo baahan yahay sidaas abaayo ku keedin kartaa hadii aad fridge heleysidna insha Allah fridge ka dhigo 3 bari kugu jiraya ساس سماء أبايو كلنا بحيد هذاي حبيبتي كسافة أسيقو بر ملهلا هوا لهلا لكن بدنا ميلو ملهلا سوبر ماركت وكلا إنا كيش دا دعوة أباي إن شاء الله ماشي جوكت كفير وأسيقو برها وجرا لكن وضن كان بدنا أنا سائد وما فائدة سنة إن شاء الله لكن هدي أسي أهليس حتى قرح دقيقة كدي بمكينة جيس وشيدو أبايو كلنا بحيد هذاي قبل 3 جرا
waxay dhahdee gabar 3 jira ii joogto bariis iyo canjeelo iyo baasto ay cunaysaa ay dhahdo wax kale ma rabto macaanto cunug markuu koraayo bariis iyo baasto kaliya ma koriyo carbohydrate kaliis cunugaada uma baahno borotiin u baahan yahay vitamin u baahan yahay bariis iyo baastada ilmaha waa la siiyaa laakiin maalinba nooc in la siiyo waxyaabaha ugu daraysan borotiinka ina u badisid mar walbana dalaga si tartiiba ku bari kartaa adigoo ku qasbin 3 jir hada weli waa ka gaartaa insha Allah laakiin intii had 3 sano dhaafin gacanta ku qabo xabiibti insha Allah abaayadan kalena waxay dhahdee xabiibti burka caday dhahdee waan iska bedelay waxaan ku bedeshay burka qamadiga ay dhahday xayaadan ka soo iibsaday gabar waxa ay joogto 1 sano ilaa 9 bilood jirto ma siin karaha abaay waa siin kartaa qamadiga ilmaha uu fiican yahay muhiim waa insha Allah ilmaha in la siiyo mar walban insha Allah ilmaha yaraanta ha lagu baro dalaga waxay ka caawinaysaa biri cunugaada wax walba oo akrisid inuu ku cuno insha Allah ilmaha si qurux badan insha Allah cunooyinka ugu diyaariya idinka jeclaysiin kartiin cunada qaabka u karinaysid abaayadan kalena waxay dhahday muxuga suuqa seebiyaan aan ka soo gaday dhahday aan ka soo helay qaybta cusub ee hadda dhow loo soo raray hablo intii suuqan u dhow waa heleysaan ma sha Allah tabarakallah hanbaliyo waa suuqii shanaad dhihi karaa aan 4 suuqa ku ogaa seebiyaan gabdhaha u dhow insha Allah ka faa'iideysta muxuga abaaya noo soo heshay adigana abaaya waa mahadsantaa sida quruxda badan qaybta commentiga aan noogu soo qortay aan noola socodsiisay waa ka mahadcelinaya habliyo quruxda badan mar walba insha Allah qaybta commentiga muhiim ay tahay wixii su'aal ah qabtid iyo wixii markaas fikirkaadi wixii dhiirigelin inta waa igu soo qori kartaan abaayadan kalena waxay dhahdeen abaayo biyaha iyo waxay dhahdeen saabuunta soo igama khasaarayaan videoga shalay waaye hadaa markasto biyo cusub aan ku dhaqo dharka bal waxay dhahdeen infahansiis sida ugu haboon oo dharkiina nadiif igu noqonayo biyahan igu dhaqaaloobayaan qaali aba biyaha sida uu fudud ah ku dhaqaaleyn kartid waxa koow ka ah dharka marka dhaqaysid ina biyo nadiif ah ku dhaqtid biyaha ku dhaqaysid dharka dhaqays iyo qiyaastis biyihiis ina ku dhaqatid biyaha dharka saaid loogu badiyo ma fiicno in laga hoos mariyo ma fiicno dharka biyaha waxir inay ka koreeyaan saabuuntii marista ku soo hartay mariska marka hal xab isticmaali jirtay jaba isticmaalaysa baaka oo meesha uu shuglada haafa isticmaalaysa meesha maxaa safe ku noqdo wax badan insha Allah mawduucan si gooniya insha Allah ugu soo hadli doona abaayadan kale waxay dhahdeen bataati macaanka ma lagu caylaa ها وقابك واستعماشد كربونهيدرات ka buuxa bliyo quruxdan bataati macaanka waxyaabaha ugu fududna waa oo la isku caatay karo laakiin sida loo isticmaalo iyo qaabka isticmaal waqtiga isticmaalaysid ay ku xiranta insha Allah ayadana waxyaabaha iscaatid gabdha badan adhooyin ma sha Allah tabaaraka abaayo ilmaha nuujina sayda u naaxnay in iscaatayna rabna hooyada cunugeeda 6 bilood haduu ka yar isma caateen karto ogaada habliyo quruxda badan abaayadan kale waxay dhahdeen waxaan sameeyaa hay dhahdo muxogeeno sharxusa qaabka ma sha Allah u sameeysato waxaan sameeyaa birta karootada lagu hoolo waxay dhahdeen aan ku hoolaa kadib makiinada cabitaanka ku shiida soor camalo waxay dhahdeen soor camalo ku noqonaya maraq aan u sameystaa hay dhahdeen koosta iyo malaay kala arag ka waxay dhahdeen kala iska arag way macaan ma sha Allah aniga ku huu macaanay inuu macaan badan yahay oo waliba kala arag uu yahay waa mahsanta abaaya ka faa'iideysta inta hooshin shiidin sida soor camal ilmaha uu kariyo aniga fuufu karinaan insha Allah waan ila soo wadaagaya marka habliyo quruxda badan mar walba insha Allah muhiim ku yahay inaad jadwalka cunada maadaama mawduuceena uu yahay sidaan u bedelay aniga labada qodob insha Allah inaa fahanteena rajeynaya mid koowaad ilmaha markii 6 bilood gaara inaa cuno ku bilaawdo waxay ka caawinaysaa cunuga sanad markuu gaaro inuu dhamaan cunooyinku yaqaan mid labaad ku fududeyn kartana waxay tahay gurigaada maalinba nooc ilmaha u karisid inta sadad labadaas qodob hore aad u soo sameeyeen sameey qodobka koowaad hada aan si idinka oo qodobka saddexaad ina ilmihiin la fariisataan hadii markaas ilmo roon ay yihiin hadii yar yihiin ilmaha ina marba nooc sameeyeen u sharaxdeen hana ku dilin hana ku qaylin hana ku qasbin cunugu ku barna laakiin tartiib bariisi baasadaan ilmaha markay dhasheen ku bilawnay barteen maho cunooyinkan kale caafimaadka bari karnaa sida dalagga kale cagaarka dhamaan insha Allah ilmaha muhiim u yahay cunugaada maxaa kula korinay muxuu u baahan yahay inuu borotiin helo inuu jirkiisa vitamin helo carbohydrate-kana uu u baahan yahay cunug tamar uu u baahan yahay soo maaha marka insha Allah habliyo quruxda badan mar walba insha Allah inay isku dhiirigelino
caanaha naaskana video kaligiisa insha Allah kasoo sameyn doonaa. Naaska caanaha haddii hooyada ay listo insha Allah 6 saacadood ilaa 8 saacadood banaanka ku ooli karaa meel nadiif oo daboolna dhiganaysaa. Haddii aad fridge haysatidna qaybta dhexa dhiganaysaa 3 saacadood oo kugu jiri karaa insha Allah. qaybta haddii aad gashatidna insha Allah 3 maalmood cafwan 3 maalmood qaybta hoos ku ooli karaa. qaybta barafkana haddii aad geliso naaska aad soo listay wuxuu kugu jiri karaa 3 bilood ilaa 6 bilood. dhaqaatiir badan xataa waxay dhahaan ilaa ka badan ku jiri karaa. mar haddii aad baraf laga dhigay waqti fara badan oo ooli kara laakiin ilaa 6 bilood fiican in ilmaha la siiyo keedinta intaas inay si dhaafto ma fiicno. marka inaa fahanteena rajeynaya naaska caanaha waxyaabo badinayo in badan insha Allah video fara badan waan soo wada hablay quruxda badan idinkan insha Allah muuqaalada meel fog ii gaarsiiya. waa mahadsantiin sida quruxda badan videoga shalay aa uga hesheen. qasaalada waxa la iga soo weydiiyay su'aalo fara badan insha Allah qasaalada isdhaqaysa iyo qasaalada oo ila dhaqdaba intaba labadooda hal video waa kasoo sameynaya sidii gabdhaheena qof nooc oo haysto oo uga faa'iideysto sida loo nadiifiyo sida qaabka saxan loogu dhaqo intaba insha Allah waan kasoo hadlaya video qurux badan hablay qurux badan nooga soo sameynaya. inaan fahanteena rajeynaya insha Allah waa bedeli kartaa cunadaada si fudud waliba ku bedeli kartaa ilmahaadana siisan kartaa cunno caafimaad. waxyaabaha iga caabiyo inaan fahanteena rajeynaa 2 qodob waaye. qodobka saddexaad wuxuu yahay in ilmaha la fiiriyo u sharaxid. marka waa mahadsantihiin muuqaalka ilaa gareey share gareey. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi ta'ala.